kusoo dhawaada barnaamijka Ardaaga waa barnaamij bilo ah oo ka baxa TV-ga dawlad goboleedka Jubbaland waa barnaamij dood ah oo aan inta badan ama aan ugu talagalnay in ay bulshada ku wada hadlaan ayadoo looga doodayo horumarinta bulshada xogagna lagu kala qaadanayo si kor loogu qaado howlaha kala duwan ee dalka ka soconayo sidaad ogtiin daawadayaal xiliyadii ugu dambeysay inta badan madaxda dalka ay ugu horeysa dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada dalka ka jira inta badan waxaa laga doodayay qaabka ay u dhaceyso doorashada la filayo in sanadka 2016 ay dhacdo oo maanta ay sanadka aynu koosane haddaba doodeena maanta waxay ku saabsan tahay daawadayaal qaab caynkee ah ayay u dhici kartaa doorashada la filayo in sanadkan aynu ku guda jirno oo maanta bilowga ah 2016 ay u dhici kartaa qaab sidee ah ayaa loo wajihi karaa in ay doorasho dhacdo barnaamijkan waxaa igala qayb galaya Cabdiqaadir Shaafici Maxamed Ahmed Cabdirashiid Buule iyo Suldaan Cabdirisaaq Xirsi Suldaan Caweer oo kamid ah salaadiinta Soomaaliyeed iyo waliba Ahmed Ismaaciil Indabuur Ahmed Ismaaciil daawadayaal waxa uu ahaa agaasimihii guud ee wasaaradda cadaaladda iyo awqaafta maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayuu iskaga casilay Ahmed Ismaaciil Indabuur dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka Ardaaga ay TV-ga Jubbaland su'aasha koowaad waxaan weydiinayaa Suldaan Caweer Suldaan qaab sidee ah ayaa loo wajihi karayaa inay doorasho ka dhacdo dalka Soomaaliya sanadka 2016 فماذا بعد الحق إلا ضلال آيات قرآن كأيام مرخانتي إلهي رجي مركب مقدمين إنواها مدحضة أما ها تمامل قبلات أما ها تؤمد الصومالية دول المامل كي كدحيي وحي عديين أما برلمان ها تو waxay cadeeyeen inaan la gaari karin one man one vote one man inaan la gaari karin bay cadeeyeen waxaan u malaynayaa labada qadiyooyinkii la keenay waxa lagu nuuxnuuxsaday oo dad yar oo aan badnayn ma ahee haddaan ummadda waraysanay waxaa la isugu soo haray war waxaanii hore ma haysanaa oo 4.5 mise waa ka gudubnaayo awalba inaan ka gudubnay ahayde inta aynu gaarayno one man one vote inta aynu gaarayno war xagee ku sii nasanaayo waxaan uma dul qaadan karnay aan kaga tagna haddii maskaxda la shiilay waxaa la yiri ra'yi ka imaanaya gobollada degmooyinka degaamada in doorashadu ka timaado qofkaasna lagu doorto waxa uu istaahilo iyo meesha laga yaqaan lagu soo doorto hadhowna uu u gudbo qof ummadda Soomaaliyeed maxkamadeedii fariisanaya oo qof kastaba wakiilka ah si uu ugu gudbo waa in gobolladu soo tashkiiliyaan aqoon lagu soo tashkiiliyaa la soo xulaa aqli la isugu tagay oo aan dhowr oday iyo laaluush midna ku salaysnayn inay ku yimaadaan ayaa la isku raacay dadka intiisa badan inta yaruna waxay yiraahdeen 4.5 baan rabnaa halka markay marayso inay sidaas tahay marxaanti Ilaahay waxa iiga shirar badan baan ka qayb galay Nairobi waa laga waayay dad badan dad yiraahda annaga soo fariisanayno oo daafacayno 4.5 galabta ayaa nin la helay odaya waxaan aad ugu faraxsanahay waxa uu shacabka u sheegi lahaa hadda isagiina way la fadhiyaan horta midda iyada oo halka inay ku dhamaato inkastoo aan ogahay oo waxyaalo badan oo maskaxda cajiib ku ah oo lala yaabay oo laga argagaxay inta la keenay oo markii hore la diiday oo dhagaha faraha la geliyay oo madaxa la taagay oo si kasta la yeelay
markii dambe in lagu hirgeliyey si faq iyo technico iyo taabasho ah shaki weyn wax caqliga daboola in arrintaa lagaga hor yimaado oo dadka qaarkiina loo isticmaalo dadka qaarkiina isticmaalo inkastoo aan ka baqayo arrintaas oo gabalkeed dhacay in la soo noolaysiiyo aan laguna heshiin doonine wax kastoo la keeno shacabku wuxuu diiday waa diiday 25 milyan weeye Soomaaliya wax rabana waa lala yahay hadday damcaan dhowr nin iyo group ama xoogaa baarlamaanka qaarkiisu inay marsiiyaanna laga yeelimayo waa un fawdo sideedana gaaladaynu been u sheegi karnaayo inagu been isuma sheegi karo horta taasaan kaga baxay maxaa xal ah oo marka sidee loo waxeeyaa haddii la yiraahdo horta waxay ila tahay ummadihii shiray ama madaxda inoo ahayo arrintaa keenay inay wax badan ka fakareen maskaxdana ku daaliyeen haddii degmooyin laga keenayo qaabkee laga keenaya anugu waxaan qabaa aaminsanayna ummad badano inay ila qabto qofkaasu qof laga yaqaan dad dagaanka ay ka imaanayaan laga yaqaan oo reer hebel aan lagu dooran oo ummadda u hoggaan jiidi kara oo ummadda waxa xunna ka celin kara waxa wanaagsanna ku hoggaamin kara in dadka laga dhex raadiyo iyadoo aan qabiil lagu salayn ilaa qabiil 4.5 baanu ku diidnay waana in la helaa caqli doorashadiisu tahay ammaanadiisu qofkan sidee tahay muxuu aaminsan yahay muxuu yaqaano inoo diri karaa muxuu yaqaano inoo diidi karaa nabigeennu mayna ku xiriirin karaa hoggaanka ma leeyahay damiir ma leeyahay awal dadka dambi ma ka galay mise kama gelin qof isku filan oo dalka u naxaya ma yahay mise waa qof gaajaysan oo raba inuu markiisa isaguna maalinta xilka loo dhiibo hadhow la yiraahdo maalinta ku xigta daweeyo ahad ammaanada dhowri kara wuxuu uga baqana yaqaan dadkana wuxuu u dirana yaqaan wuxuu ugu dirana yaqaan hadalku waa ka maqnoo waataan maalintii dhaweyd niri haddaan ninku aqoon wuxuu noo diray maaligiyo wixii eebba mamnuucay iyo mushabbahaadka inal xalaala bayina wa inal xaaraana bayina wamaa baynahumaa umuuru lmushtabbahaat caqliga iyo nasuustoo la xushtay baa lagu helaa niman caqli saliima iyo nasuusta oo u xushay aan kala miiran karin uma helo dad noocaa lagu yaqaan ilaahow ay ahaadeen xataa ummadda xaqdarrada laga galay oo la haybsooco waxaan doonayaa dad noocaa lagu raadiyey in laga soo doorto degmooyinka iyo gobollada xaaraantiina xalaal lagu bedelo reerka yagaa badan iyo anu ixigaa iyo haddii xoolahaasuu haystaa iyo in qofka damiirkiisa iyo aqoontiisa iyo faylkiisii hore iyo nadaafadda uu leeyahay in lagu tixgeliyo ayaan anigu qabaa qaabkaasna lagu soo doorto insha allahu haddii ilaahay ina waafajiyo aan saa helana waa guulaysanay waana guulaysan doonaa daawadayaal aragtida uu ka dhiibanayo Suldaan Cabdirasaaq Dirsi Suldaan Caweer Axmed Ismaaciil sida ujeedii suldaanka waxa uu ka hadlay aragtidiisa ku aadan qaabka ay u dhici karto doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo adigoo aragtida waxaa kaloo jira oo aasaasi ah doorashadu sidee lagu qabanaya karaa hadda websaydyadu wax bay qorayaan miidiyaha wax buu sheegayaa dadka dawladda ku jiro ka muuqdo ama madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha ama dadka kale aragti gaara ayay qabaan dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah ayaga naftooda aragtida way ku kala duwan yihiin kuwa waxay qabaan doorashadu waxay u dhici kartaa sidii hore waxaa weeye mabdi laynagu soo safriyey ee viruska laynooga dhex tagay kii ayaa la qaadanayaa ayay qaarkood leeyihiin qaarkoodna waxay leeyihiin maya niman yahow sida aan ka bedelno oo sida suldaanku uu sheegay degmo aan wax ku salayno oo deegaan aan dadka aan kusoo dooranno oo ninka xildhibaanka deegaankiisa ka yimaado waxaa weeye anu aragtidayda waxaan qabaa
in ay suurtagal ahayn dadka Soomaaliyeed sidan inuu ku jiro. Anigu waxaan aaminsanahay 4.5 shan sano haddii dib loogu celiyo magaceedu wuu baaba'ayaa. Soomaaliyana dal sii burburay meeshii 99kii ayaan dib ugu laabanaynaa, 91kii baan dib ugu laabanaynaa. waad ogtihiin hadda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah oo hadda ayaguna dhismahoodu qaarkood socdaan in khilaafaad badan ay ka jiraan. in waxaa weeye 4.5kii wax lagu muquuninayo oo dad gaara ay wataan. 4.5kan waxba lagu geeni maayo, wayna sii burburinayaa. meeshii 99kii aan ka imaanay ayay inagu celinayaa. anigu saas ayaan aaminsanahay. haddii nidaamka deegaanka aan la qaato waxaan anigu dhihi lahaa dowlad ayaa noqon lahayn oo sidii ayaan ku laaban lahayn awalba aan ahayn. dowladda 3 qaybood ayaa laga fiiriyaa. in ayadu ay leedahay siyaada, waxyaabaha carabiga siyaada ay dhahaan af carabiga, waxyaabaha gaarka dowladda ay u leedahay quwadda iyadu ay isticmaasho, ama dhaqaale ha noqdo, ama dad ha noqdo, ama dhulkeeda baaxadiisa ha noqdo, ama khayraad dibadda uga yimaada ha noqdo. dowladdeena dhaqaalaha ay hesho maynagu filan yahay. dadka qaar ayaa dhahaya maynagu filan yahay in doorasho deegaan aan ugu celino. dadku ma u tababaran yihiin inay cod ay ridaan. waa dadka aaminsan aaminsan 4.5ka ayaa excuse-ka keenaya. waxay leeyihiin way ku andacoonayaan dadkeenu codka sida loo rido ma yaqaanaan, shaqsi codka ma u ridi karaan. dhaqaale inugu filan ma haysanaa oo codka aan ku ridano. maaliyad waxaan sheegayaa amni inugu filan ma haysanaa oo dadkeenu codka uu ku ridan karo. kuwa kaleetana waxay leeyihiin waan haysanaa dhaqaalaheena oo deegaanka oo livestock inugu filan, waxaan gacan ku haysanaa inugu filan. 60kii haddaan dhaanaa dadku hadday ka reebigaalsan yihiin, dibad ayaan aadnay, ayagana saa ayay leeyihiin. anigu waxaan qabaa intaan midna inaan loo baahnayn. nin walba tuuladii uu ka dhashay hadduu xil rabo in la dhoo aad. haddaada aadin karin tuuladaadii oo dadkaagu ayna kugu kalsoonayn, dee xildhibaan ma noqon kartid, madaxweyne ma noqon kartid, wasiir ma noqon kartid, ra-iisul wasaarena ma noqon kartid. dan ayaad meesha ku haysaa. wili daawadayaal waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka ardayga cabdiqaadir shaafici sidaad maqlaysa suldaanka iyo weliba axmed ismaaciil waxay isku raaceen in doorashada la filayo in 2016 dhaceysa in hab deegaan loo soo xulo. aragtidaadu waa sidaadu? الرحمن الرحيم. aad baan idin salaamayaa horta marka ugu horeysa shacabka halkan fadhiya iyo walaalaha dhammaan. waxaa kaloo aan salaamayaa salaadiinta iyo dadka cuqaasha oo meesha fadhiya dhammaan. waxaan salaamayaa muxuu ahaa TV-ga Jubbaland oo suurtageliyay in muxuu ahaa aan araadeena iyo fikradaheena aan gudbino oo shacabkii Soomaaliyeed oo meel walba jooga u gudbino. horta waa mahadsan yihiin fikradaha ay ka dhawaajiyeen. waa fikrada yacni ay aaminsan yihiin. fikradda aan aaminsanahay waxay tahay in shacabka Soomaaliyeed isku laaya maaha. war afka laga sheegane kulley ma suurtagalayo. waxaa wanaagsan waxa la qabanayo inay wax la qaban karo oo la taaban karo ay noqdaan. waxa la taaban karo oo la qaban karane waa waxa aan gacanta ku hayno 4.5ka. muxuu ahay haddii dad hore loogu soo dulmiyey markii la joogo shirkii carto yay dhihi lahaayeen waan dulansannahay mana soconayso, meeshaas ayay lagu kala tegi lahaa. maadaama ay ogolaadeen culimmadii iyo dadkii meesha fadhiyey iyo odayaashii dhammaan ay halkaas inta shirkii iskugu yimaadeen muxuu ahaa Jabuuti lagu ansixiyey ilaa up to now lagu soo dhaqmay oo ilaa hadda lagu dhaqan yahay. maadaama hadda la leeyahay muxuu ahaa muxuu ahaa deegaama ayaa wax lagu soo xulayaa ma ila ah. waayo waxaad u jeedaan deegaanada haddii la dhaha dagaalkii ka dhacayay muxuu ahaa Puntland iyo Galmudug maxaa la isku dagaalay? weli xuduudihii iyo qaabkii iyo nidaamkii ma caddo. wax suurtagalina ma laha. dadkan yaan lagu laynin, yaan shacabkan la laynin, 91 yaa loo noqonin. oo waxa hadda la haysto mid in la sameeyo waa suurtagal. in dawladda xilliga hadda haysato waqtigeeda loo kordhiyo
mudane xasan sheekh maxamuud wuu dadaalay wax badan ayuu soo qabtay horena wuu soo socday wax nidaamyo fara badan ayuu soo saxay waxaana muhiim ah in muhiimadda laga soo qabto in la saxa nidaamka hadda lagu taagan yahay oo 3 sano ama 2 sano kale looga daro oo la gaaro ilaa heer deegaan oo macnaha ay wax ku saxmi karto oo codkii qof shakhsi ahaantiisa cod lagu soo saxa oo yacni cod ahaan lagu doorto waa wax wanaagsan haddii la waayo dadka in laisku dilo oo maxay dusha la dagaalamo ma wanaagsano oo waxaan taaganahay sida hadda wax ku saxan yihiin oo ummadda wax ku qaybsanayso in lagu qaato nin walba inuu meel ka qayliyo waa laga haboon yahay dowladna inaan anaga maanta meel ugu dhacana diyaar uma nihin waa dowlad sharaf leh wax badan ayay hagaajisay tan kalene muxuu ahaa yacni arrimaha aan leeyahay waxay ku dhismi karaan sida hadda aan idin sheegayo oo muxuu ahaa yacni arrimaha lagu qaban karo waxay tahay in muxuu ahaay sidii horey loogu hirgeliyey oo lagu soo dhisay dowladda hadda ay ku dhisan tahay lagu dhiso haddii la waayo waa in muxuu ahaay la sugaa dowladda timekeeda mandateska loo kordhiyaa dowladda ay soo saxdaa sidii wax lagu soo dooran lahay oo yacni deegaan marka fikradayda saliimka ah intaas ayaan ugu baxayaa insha allah dad badan ama aqoon-yahano badan waxay sheegeen in ay 4.5 dhibaatooyin ba-an ay u geysatay dhalinyaradii Soomaaliyeed oo aan jaamacada iyagoo ka baxay isan helin shaqooyin ayagoo lagu ciiday ama dhibaatooyin lagu geysanayo 4.5 maxaa ugu kalbina doonato aad baad u mahadsan tahay horta ma hayno wax lagu kala soocay qabiil oo lagu eriyay maadaama ay tahay dowladda federaal ah oo lagu soo doortay 4.5 oona muxuu ahaa yacni dowlad sharaf leh oo wanaagsan ay tahay aniga waxaan aaminsanahay hadda muxuu deegaanada inuu dhib keenayaba oo muxuu ahaa yacni nin walba hadda kadib dagaal ay bilaabanayso nin walbaba uu soohin iyo muxuu ahay goofka uu lahaa uu noqonayo marka waxaan leeyahay tan nidaamkeeda wuu saxmay waan soo aragnay macnaha haddii lagu soo dagaalamay oo horey yacni looga dagaalamay waan arki lahayn maalintii la dhisay dowladdii cabdilqaasim salaad xasan ilaa abtinaw dad isku dagaalaya 4.5 ku dagaalamayo qabiil wato ilaa hadda ma hayno laakiin waxaan aragnayba dowladdii markii la dhisay muxuu ahay ismaamul goboleedyada la dhisay in qori la soo qaatay oo la leeyahay wadadan xaafadeedii soo gashaa taasaan taaganahay hadda Soomaa marka 4.5 ka waa dowladda lagu soo dhaqay nidaam hadda la waayeen nidaam lagu dhaqo waa in la helaa oo nidaamkii lagu dhaqi lahay dadkii shacbiga dowladdii oo siyaad baran maxay ku dhisneed military ku dhisneed soo wax jira ma military ku dhisneed military-gana wuxuu ahaa military wanaagsan oo dowladdii iyo dalkii iyo dadkii soo difaacay oo nidaam adag oo maanta yacni wanaagsan soo gaarsiiyay hadda markii qodobada la isku qabto 60ka loo noqdaa leeyahay maxaa loogu noqonaya haddii wanaagsaneen marka Soomaaliya been isu sheegin waxaysan qaban karin ay ka dhawaajinin nidaamka lagu socdo sidii loo gudbi lahaa yacni dowladda mandateska loo kordhiyo oo wax qabsato oo muxuu ahaa nidaamka soo socdo oo sidii wax lagu kordhin lahaa shakhsi oo macnaha qof oo codkiisu ku dooran lahaa ha gaarsiiso ay haddaysan gaarsiin karinna tan hadda taagan tahay coqaashii ha la soo xulo odayaashii baarlamaanka ha keenaano sidii muxuu ahaa lagu soo dhis dowladda taagan ha lagu dhisaan taaganaani aad ayuu mahadsan yahay Shaafici Cabdirashiid Buule sidaad maqlayso Suldaan Caweere iyo Ahmed waxay isku raaceen in ay wanaagsan tahay in doorashada la filayo in dalka ka dhacdo 2016 ay noqoto hab deegaan ayagoo diiday in ay noqoto 4.5 ama 4.5 halka Cabdiqaadir Shaaficina uu ka soo horjeedo inta badan sidaan ognahay dowladihii dalka soo maray waxa ay ku dhisnaayeen nidaamka 4.5 bal waxaa sharaxaad naga siisaa 4.5 goorma waxaa yey qof basi oo la muuqata dad waxay u arkeen see la sugu keeni karaa Soomaali shirarkii badnaa 91kii 93gii shirka Addis Ababa oo Lansana Kote ninkii la dhihi jiray oo la sugu keenay shirkii koowaad ahaa shirkaasi waxaa lagu go'aansaday 18 gobol oo gobol kaste degmo 21 hadda laga soo dhiso 3 qof oo sanatara ahna ay dowladda dhexe u gudbaan iyo barra saabka saas darteedna dowladda dhexe lagu doorto deegaanna laga yimaado shirki koowaad saasoo ahaa waxaa ku xigay shirki soodare oo la isugu imaan jiray ku xigay waxaa lagu heshiiyey wax arrintaasoo kale u dhow kumishino kala matalo beelaha wax ku salaysan shantii madaxweyne wixii lagu saleeyo kala saasoo kale u ahaa waxaa ku xigay shirka carte oo jabhadihii bay labadaas ahaayeen waxaa ku xigay shirka carte oo la yidhi Soomaali soo la isugu keeni karaa wax un aad moodid dhig joojis
yaa Ismaaciil Cumar Geelle oo oday weyn oo Soomaali ah oo rabin inaan galo inkastoo laba shir oo khatar ah lagu qabtay Djibouti oo shirka 91 ka ahaa oo dad badan ay u arkaan dekanooyin foolxun inuu keenay haraadiga la dabartiro lagu saxiixay oo khatar badan oo Soomaalida ka muuqato oo Soomaalida ka dhaxdhacay inuu sababay haddana ay ku xigtay shirkii point 5 oo ahaa warlooradii oo laga cararayo odayaalkii dagaalyahanada nimanka la dhihi jiray oo ayagoo laga cararayo in la yiri ha la isku keeno odayaalkii dhaqanka iyo dadkii hore dawladda Soomaaliya iyo dawladda civilka hore wixii ka soo haray ha la isku geeyo waxaa xal loo arkay in barnaamijkan 4 qabiil iyo bar la isugu keeno Soomaalida maxay tahay haddaad adi badan tahay iyo haddii kalaba in la yiri wax sharci ahana nooma aha oo waxaa sharci noo ah 18 gobol 9 iyo dhowrkii degmo ama 9 iyo labadii degmo iyo sharciyad noo ah waana 2 sano oo ku kala guureyno systemka noo qoranna waxaa weeyo in 18 gobol iyo 9 iyo labadii degmo laguna saleeyo MPyada 2 sano kadib iyo shuruucdo dhan iyo systemka la dhisanayo hadday tahay cadaalad qaabka wax loo qaybsanayo hadda la sameeyo deegaan uu ka soo jeedo MPga la cadeeyo oo la yiraahdo intaasoo mitir iyo intaasoo mitir oo murabbac ah hal MP bay leedahay intaasoo mitir oo murabbacana hal sanatar bay leedahay deegaanadii dhariskii la soo dhiso councilkii la soo dhiso dawladda Soomaaliya shaqadeeda saasay ahayd dawladda ayada ahayd oo Dr. Cabdiqaadir iyo Professor Cali Khaliif Galayr loo igmaday sababo badan oo jiray iyo gudahooda oo isku aragti laga noqon aragtidii ku kala duwanaa ma suuragelin waa lagu kala tagay waxaa bilaabatay shirkii Cartaa meesha shirkii Nairobi la isugu yimid oo ahaa Eldoret la isugu yimid shirka asaga waxaa lagu celiyay tii ayada ahayd oo hal eray oo isbedel meesha kama soo bixin waxaa la yiri 18 degmo 92 degmo yaan wax ku dhisanaynaa waa 2 sano kala guura dawladda hore way fashilantay xukuumadda shaqadii hore waa la qaban waayay ha lagu celiyo tii ayada in systemkii 2 sano ku meel gaar inay dawladda ku soo dhisto xukuumadda Soomaaliyana 2 sano ay u xil saaran geedii iyo Cali iyo Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo tii lagu soo doortay markii Cabdullaahi Prime Ministerkii ugu horeysay oo ka socday dadka rayidka ka socday iyo Cabdullaahi Yuusuf oo maamul goboleed iyo odayaalkii hore oo ama qabqablaha loogu yeero ama warloor ha loogu yeero nooc rabta ha loogu yeero ee ka socday iyo Prime Ministerkii Prime Ministerkii madaxweynihii bay kala noqdeen Cali Maxamed Geedi 2 sano kadib Cabdullaahi Yuusuf isku dhaceysay sharcigii loo cuskaday wuxuu ahaa in shaqadii loo igmaday xukuumadda inaysan waxba ka qaban oo 2 sano in lagu soo diyaariyo ahayd dastuurkii iyo systemkii dalka lagu dhaqi lahaa qodobada ugu horeeya waxay systemkii oo la soo diyaariyo maxkamadii oo la dhiso oo lagu saleeyo qaabkii deegaanada iyo wixii sharciyad ah power sharing oo ku salaysan deegaanadii xukuumadda ayada Cabdullaahi Yuusuf markuu xilka ka qaadayay haba markii dambe siyaasado kale iyo tabar la'aantii dawladda lugta la gashay wuxuu ooga qaaday oo xilka asaga loo cuskaday in uu buuxin waayay xukuumaddii booskiskeedii inay qabsan weyd tii ayada ahayd xukuumaddii Nuur Cadda yimid sidii bay haddana ku dhamaatay iyadoo waxba la qaban dagaal la qarxay waxba kala soo dhadhaxgalay wax ilaahay untay oo ka soo qabtay male waxaa la sameeyay 2 sano oo loogu daray kooxihii dagaalamaya haddana oo kooxihii markaas kacsanaa oo magaca diimaha iyo watay yaa la yidhaha lagu soo daro hana laga dhigo inay 2 sano ku dhamaashatiraan magaciisiga midda iyada waxaa la yidhi dad aqoon-yahana iyo civil society iyo dhalinyaro iyo hala raadiyo waa qandhar bay soo istaagtay haddana xukuumaddii waxba ma taaban waa kusoo wada aan sharaxo waa barnaamijka meeshaas muhiim ka yahay 2 sano waxay ku dhamaatay haddana in la yiri waxa ma soconayo 1 sano oo Kampala Accord ah oo la yiri yaa qabanayo cidii diidan nidaamka waxaa qabanaysaa liya beesha caalamka jabcada qurmaha ka dhaxaysa igad amisom baa qabanayso maadaama annaka Soomaaliya tabartii iyo hay-aadkii kaabayaalkii dawliga ay noo dhisnayn Soomaalidu way isku tagtay 2 sano halkii sano loo igmaday Cabdiweli Cali Gaas iyo Sheekh Shariif haddana ayna waxba kama soo bixin waxbaa la saxiixday Garawa 1 iyo Garawa 2 yaa ka soo baxay
tii ayadahaydo waxaa lagu celiyey 93 18 gobol 92 degmo in xildhibaanada lagu soo xulo laakiinse maadaama aan one man one vote la samayn karin bal sanataradana lagu soo sameeyo sanataradana in lagu soo sameeyo deegaanka lagu soo dhiso aqalka sare midaan kalena 4.5 kii dhaxaadis waxaa yimid dhaxaadiska yimid 4.5 kii midii lagu saleeyay ma ogi tii sanatarada oo gobollo badan iyo deegaamo badan laga taageersanaa ayna senatoriski meeshii buu ku lumay lama soo qaadin balaa senator oo sharciga ku qoran iyo haddana meesha ka soo baxay dowladda Soomaaliya markii Xasan Sheekh Maxamuud la soo doortay iyo prime ministerka yaa u ahaa Dr. Saacid waxay u xil saarnayd 2 bilood gudahood beesha caalamka iyo dadka systemka soo sameeyay inay ku soo sameeyaan guddiga cadaaladda oo number 1 ah 2 bilood gudahood aqalkii sanadka aqalkii financial boardki waxa aqalkii dhaqaalaha oo systemka dhaqaalaha dalka iyo cashuuraadkiisa iyo ila kaalmo shisheeye wax lagu ma dhisto budgetkaagana lagu ma darsado iyo qaabka amniga Soomaaliya loo dhisla waxay noqotay sharcigi qornaa wuxuu noqday in deegaankii iyo systemkii aan laga gudbi karin maadaama dowladnimo laga rabo waxa hor istaagay dadkii Soomaalida khilaafaadkeeda in xagga mid loo dhaqaaqo la waayo أنا waxay ila tahay Soomaalida meel xaliyay dhaxunta horta uma allalo oo si oo indhaxunahay uma allalo dadka Soomaalida hadii dawladda Soomaaliya shaqadeeda waxay ahayd in dadku wax sax ah hadda la soo dhaxdhigo laga doodo oo hadda ay dhisto systemka cadaaladda kuraasta MByada meesha ka soo gali lahayn la calaamadayo ilaa intaas hal MB bay qaadan karaan 10 MB buu deegaankaas qaadan karaa beelaha iyo midaan kale la sameynayana wadankan hadda ku nool degmooyinka waxa la sameeyay minority-ga curyaamiinta magaciisiga waa la dhihi karaa dawladda waxay ahayd dadkan ka baqaayo inay beelo sadbursanayaan markii deegaan lagu saleeyo inay dawladda dhexe shaqadeeda waxay ahayd dadkaasi xaqoodii iyo xuquuqdoodii inay raadisay ahayd laakiinse inay taagnaato meesha carta la taagnaa iyo meel ka sii falxun oo system loo dhaqaaqay jirin waxay la tahay magaciisiga hadda dawladda Xasan Sheekh Maxamuud dadku iska amaanayaan waa magac Soomaaliyeed laakiin anigu waxaan qabaa hal tilaabo uu qaaday iska daayay tii warloorada inay dhaantay baan qabaa oo hal tilaabo Soomaalinimo hore loo qaaday jirin waa aragtidayda way mana rabo madaxweynaha Soomaaliya inaan cambaareeyo laakiin wax la qabtay inaysan jirin wax tilaabo la qaaday jirin judiciary lama dhisin financial board lama dhisin systemka amniga lama dhisin wax alla wixii MByadan deegaanadii lagu saleyn lahaa waa la magacaabaa hadda census baan maraynaa one man one vote adduunka one man one vote wax saas oo lagu doorto ma jiraan heshiisiya wax lagu doortaa wax sax oo wax lagu saleeyaa lagu doortaa markaas waxa yimaado dadka inay dawladda u cadaalad samayso inay maxkamadda dhisan tahay la yiraahdo soo gudbiya dadka cabanayo deegaankaas meeqa isla degan deegaano badan baa markii wax la qaybsanayo beelo laga xoog yaa markii maamul la dhisayna waa la isku soo daraa Soomaalidana wax ma kala weydabo runta markii la sheego markii beeshaada xoogaa muuqataaba wax la waayaa oo ninka beeshiisa muuqataabo ya colaad badan oo gudaha beeshaada kaaga dhax imaanaysa wax lagu waayo anigu waxaan qabaa systemka saxda ee dawladda Soomaaliya ma aadin hadii inta la aadayana inaan wax hal ajirin oo deegaan wax lagu xaqiijiyay oo la yiri senatorkaas wuxuu ka soo galayaa meel hebel ilaa meel hebel MBgaas wuxuu ka soo galayaa meel hebel ilaa meel hebel eldariskaas iyo councilkaas wuxuu xukumaa tuule hebel ilaa tuule hebel division location wax la yaqaan dow iyo daaq waxaan niraahnaba oo nidaamka anaga aan naqaanay wax la yiraahdo Soomaalidana warigeed system federal ah oo eldaris oo odayaal oo Soomaalinimo yaan ku dhaqnayn markii horena oo odayaalka si u kala curadsan yihiin iyo system noo dhisan buu ahaa culumada odayaalka wax garadka ninka aftaanka taasi loo qiimeyn jiray hadda anigu waxaan u arkaa jugjug meeshaadi joog inkastoo systemka dadka dhaxgalay ahayn oo barasharka saaran aanan aqoon laakiinse wax aan ku doodno oo la yiraahdo wax ay isku dayday dawladda Soomaaliya inaysan jirin baan u arkaa raalina haliga haddaan u soo dego barnaamijka 4.5 macnaha kumeel gaar iyo ha asaga laftigiisa dawladdii kumeel gaarka ahaydna waa laga baxay dawladda hadda taagan waa dawlad muhiim oo la aqoonsan yahay waxaan filaynaa 4.5 inuu macnaha kumeel gaarkii uu la haray welina macnaha waa sii shaqeynaya leeyahay waxaana keenaya constitutionkii laftigiisii oo ilaa hadda weliba kumeel gaar sii ah constitutionka yaa macnaha dadkan
kala celiyo constitutionka ayaa micnaha dadka u horseeda inay qof walba uu xaqiisa uu ku helo ama xaqiisa uu ku ilaashado dowlado badan ayaa daris la ah dowladda Soomaaliya dowladda Kenya oo hadda aan ku noolnahay dowladda Ethiopia labadaba federal way constitutionkooda wuxuu ka soo dhismayaa ilaa iyo constituency la isku soo dooranayaa ilaa county imaanaysa marka ilaa iyo federal government markaas ay toos u aadayso taasoo kale waa leenahay anaga state government saan leenahay waxaan leenahay degmooyin hoosaan sii leenahay dadkii waa joogaan haddii arrintan hadda hoos loo dego oo 4.5 kan laga baxo waxaa si fudud lagu heli karaa in micnaha doorashadii one man one vote la gaaro one man one vote waxaa lagu gaarayaa degaan markii la aado qof walba gurigoo degan yahay gurigana ka soo baxa xaafadda uu ka soo baxo qofaa ka soo baxaayo xaafaddaas councilaa ka soo baxaayo xaafaddaas MPaa ka soo baxaayo xaafaddaas waxay soo dooran kartaa governor ay soo dooranaysaa waa mahadsantahay abaa marka waxaa looga gudbi karaa tan ayadoo deegaanka hoose la iska soo doorto oo qof walbana deegaankiisa qofka ugu hooseeyo uu yaqaano uu asaga soo doorto hadday ahaan lahayd micnaha odayaasha oo sare ee sanadka ilaa iyo baarlamaankii oo congresska ah iyo meesha ugu hooseyso oo micnaha dhahan maxaa la dhahaa councilka de anaga ma naqab Soomaali ma naqaan marka waxaan kuu sheegayaa ha dowladda hoose minishiib yacmal adiga marka iska council saasi tagaysaa micnaha canshuur la aruurinayaane marka waxaa lagu gaari karaa taasaa qof walbana uu ku qanacsan yahay qof walbana uu ku qanci karaa uu qaanic ku yahay uu ku micnaha uu ku heli karaa ama codkiisii ama inuu wax meel maray ama wax ay hataa asaga uu raalli ka yahay inay meel tageen oo aaminsan yahay micnaha maalin walba waxaa la xagxagtaa madaxweyne waxaa la xagxagtaa prime minister maalin walba la tuuraa prime minister la bedelayaa ilaa haddana micnaha dastuur wax ka shaqeeyay oo bedelayna maba jiraba dastuurkii kumeel gaaru wili iska sii yahay waa inaan dastuurka kumeel gaarka laga saaraa dastuur xor ah oo dadkaanayta ay ku qancaan in la helo waay waa in dadkaanayta micnaha doorashadoodii ama codkoodii qof walba uu qaanaca ku yahayna inuu helo waay marka adinkoo mahadsan waxaan kusoo gabagabeynayaa 4.5 dadkan kuma qanacsano mana rabaan 4.5 kumeel gaar oo ahaa waa la soo nacay taariikhdiisana waa dhamaatay 4.5 waa inaan ka gudubnaa sideedaba aan deegaanka aadnaa intaan dadka baanarka joogaan u soo gaday nabadoon xasan maxamed oo ku magac dheer Jelani iyo aragtidiisa ku aadan qaabka ay doorashada u dhacayso 2016 la filayo inay dalka ka dhacdo ma hab 4.5 mise hab deegaan marka waa maqlay hadda marka midda kale waxa ahaa horta dawladda Soomaaliya waa dawlad muxuu ahaayay ka gudubtay 4.5 waa dawlad federaal oo dawlad muxuu ahaayay si ku meel gaar ma aha sidaa darteed aniga waxaan raacsanahay in degaan ama federaal 4.5 in badan aan ku soo jirnay dawladaha ku meel gaarka ah oo ilaa ay carta sheegada sidii hore ragayga hore u sheegeen muxuu ahaayay dib u dhac iyo muxuu ahaayay Soomaali kala qoqob iyo qabiil bay muxuu ahaayay ay ku socotaa federaal waxaan aaminsanahay haddii degaan wax lagu qaybsado haddii muxuu ahaayay waxaa dhici karta in dhowr sano intaasoo sano waddanka ka maqnaa haddii uu soo laabto in muxuu ahaayay tixgelin oo leeyahay aqoontiisa uu ku tegi karo meel midda federaal midda ah muxuu ahaayay 4.5 culays ayay ku tahay Soomaaliya muxuu ahaayay waa ka gudubtay aaminsanahay sidaa darteed federaal iyo muxuu ahaayay ayaan taabacsanahay taasaan leeyahay in degaan wax lagu qaybsado faa'iidada ay leedahay waxa waaye qofka macnaha guriga meesha kule waxaa laga yaabaa in tixgelin gooni ah uu helo uusan ahayn nin jeclaysi uusan kusoo galayn oo kusoo galayo xorriye iyo degaan muxuu ahaay ama aqoon ama asagoo in badan waddanka ka maqnaa kusoo laabtay ehelkiisa iyo qaraabadiisa xataa ay mar hore ka guureen waddanka deegaanka oo ku dhashay eheladiisa iyo awowgiis laga tixgeliyo intaasaa faa'iido aan u arkaa aniga magacaygu waa Bashiir su-aashaan qaba waxay tahay maadaama la leeyahay deegaan waxa lagu qaybsado oo dawladda ay dhahday bulshada reedkana ha ka qayb galaan dad kale meelaa laga keeno dhalinyarada ha ka qayb galaan doorashada in saas looga qayb galo dad kalena ay taageersan yihiin 4.5
dadka maadaama dadka ay leeyihiin deegaan waxa lagu soo doorto baarlamaanna hala soo doorto baarlamaanka ma baarlamaanka wax dooranayo ma ka wada qaybgalayaan haddii ka qayb galaan haddii dadka deegaanka ay ka qayb galaan baarlamaanka si u soo marayaan hadhowti ma baarlamaanka hadhowti la marsiina la ansixinayo taasaan rabaa in leejaayil bixiyo midda kaleeto 4.5 ka leeyahay anigu kuma jiro mana taageersani mana soo dhaweynaa diinteenna ka mid maahan aadan uga soo horjeedaa because dadkan waa dad islaama qof kaleeto ka bawr sareeyay ma jiro dadka bini aadanka way sameeyeen qof oo 9 bilood ka badan ka yar ku dhashay ma jiro marka waxaan leeyahay dadka 4.5 ha ka haraano midaasna baarlamaanka cida soo dhigisaysa iyo dad bulshada rayidka ah iyo dhalinyarada ka qayb galayaan doorashada ka qayb galaana in la leeyahay qaabkay uga qayb gali karaan su-aasha wiilka Bashiir uu yiri waxay ahayd cidda soo dooranayso haddii la yiraahdo deegaan waxa lagu qaybiyo ama yaa wax qaybinayo dhalinyarada say uga qayb gali gabdhihi say uga qayb gali cidda xaq leh xaqeeda yaa siinayo waa midii loo igmaday dawladda Soomaaliya inay soo diyaariso iyadoo ku meel gaar ah iyo iyadoo sharci oo 4 sano dawladda caalamka dhan laga aqoonsaday hal tilaabo ah oo dawladda Soomaaliya arrintaas ay qaadayna ma jirto waxa yarka oo Soomaaliya hadda ka soo galayna waxa weeyo maamul goboleedyada oo framework ahaan u jiro anasaan qabo oo meel wax laga bilaabi karo frameworkaas wax lagu macnay ani ma aqaan idaacadaha ongaalada ka maqlay ma aqaan kullayba un heykal guud saasal dhig kara un malayn oo habka maamulka isku raacaya iyo deegaanada intaas ka jirta laakiin wax alla wixii heykaladii kala dawladda ahayd oo wax qaybin laha maxkamadda qaybin lahayd waxa noo qaybin lahaa gudiyada dastuurka noo qaybin lahaa eldariska noo qaybin lahaa aqalka sanadka loo dacwoon lahaa aqalka deegaanka hoose loo dacwoon lahaa dhammaan waxay ahayd in la diyaariyo framework ahaan loo sameeyo hal framework oo noo samaysan hadday tahay amni iyo hadday tahay cid wax noo qaybinayso iyo hadday cadaalad tahay 15 sano laga joogaa maalinka Cabdiqaasin Jabuuti ilaa maanta hal mid ah oo tix raacno waxa ka jiro xoogaa gobolladina sharciga raaci lahaayeen dawladda dhaxaa ka awood badan oo gobolladu waa un power sharing wax lagu qaybsanayo way laakiin awoodda dawladnimo iyo jiritaanka Soomaaliyeed wuxuu ku jira dawlad dhexe oo noo jirto oo system leh oo ku kala baxno loo kala dacwoodo cidda cabanaysan wax u gudbiso dhammaan ma jiraan hay-adkii loo xil saari lahaa oo dawladda dhexe inay soo samayso ahayd oo Soomaali wax u qaybin lahayd oo cidda cabanaysa cabashadeeda u gudbin lahayd cidda wax laga wato wax u soo celin lahayd dhammaanteed hay-adihii liskuma dayin marka ani waxay la tahay dawladda noo jirtada afka un haddii dawladda markii la macnaynayo xaduud iyo border iyo dad iyo habdeegan ayaan ku imaadayaa tiri maamulka koonfur galbeed kaliya miyaa habdeegan dadku ku soo doorto sidaan ognahay deegaanada ama maamul goboleedyadu waxay ku dhisan yihiin 4.5 ama 4.5 horta waxaa weeye ayna fahansiiyo systemka hadda wax loo qaybinayo koonfur galbeed anu ma dhahayo cadaaladda ayay raacday because hadday cadaalad tahay anigu kama baxeen deegaanka anigu aan kasoo jeedana wuu ka mid ahaan lahaa waxaa weeye dawladda bakoolka sare ee ka mid a dawladaha hoostaga dawladda dhexe ee Soomaaliya waxaa weeye walaalayaal 4.5 ka sida aan u qaadanay wuu ka bedelan yahay sida hadda loo dhaqmahayo ma aha in badnaan iyo yaraan wax lagu kala qaybsado wax dambi ah ma aha laakiin sida hadda loo qaybinayo ee hadda aan aaminay Soomaalidu ay ka aamintay waxaa weeye awoodii iyo xuquuqdii dad ay lahaayeen ayay dad kala qaadanayaan taasina waxaa siinayso siyaasadda dadka markaa meesha ku jiro oo awood markaa ku leh waxaa weeye nin walba markuu awood helo oo awoodda gobolkaasi u helo Soomaalida waxay dhahaan hadda dawladaha jira dadkiis ayuu u badinayaa taas waxaa inaga reebi kartaa inaan deegaan u laabano because haddaan degmo lahayn adu xageed ka iman meelaad ka iman ma leh waa iska tegi xamaaligaagaad geli marka waxaa weeye anigu waxaan aaminsanahay inaan degmo ku laabano marka ciddi ku qadeeyo ciddi markaa wax ku heli markaas ayaa la arkayaa sidaa iyo nabadgelyo waan ka baxay dawladaha jira adduunyada saddex waxyaalahay ku dhisan yihiin ciidanka iyo maxkamadda cadaaladda iyo maxkamadda sare iyo baarlamaanka iyo xukuumadda
ay ku dhisan tahay dadkan waxay ku kala dambeeyaan sharciga iyo booliiska ama amniyada security deegaanada Soomaaliyeed dhammaan ciidamada Soomaaliya ma wada joogaan amaanna kama jiro stable ma ah wali ma dadka shacabka been loo sheegaya mase dadka la rabtaan inaad Arsenal iyo xubaan gelisaan maxaa iskugu loo sheegaya waxaan macquul ahayn midda kale Arsenal qolyaha nabadiidka in loo macangeliyo miyaa la doonayaa shacabka waxaa kaloo jira oon hadda meeshaan uga ognahay waxaa la yidhi Soomaalida waxay ku maahaan biyahu saxaabadada loo raga qabiil kasta oo Soomaaliyeed Soomaali qabaa'il bay ku dhisan tahay kasoo bilaab waagii Ingiriiska iyo Talyaaniga ay kala xukumayeen ilaa Abdullah qabiil kastana wuxuu xaqiisa ku qaadan jiray inta uu yahay iyo goobta uu degan yahay ee baarlamaankiisana ku heli jiray xaqiisana ku heli jiray tii ayada ahaydna hadda waa lagu mataqaanaa waxaa noo muuqda xoogaha dowladnimo oo iftiimaya noo muuqda taasna waxaa keenay 4.5 ka hor waa la isku fahmi waayey qabiil kasta meel baa u goonay hadda markii la yidhi qof kasta gacantaada dhiibo qofkaadana keenso ayaa waxaa la helayba waxa dowladda iyo madaxweynenimo leeyahay iyo kumeel gaar baa laga baxay xataa la helo su-aashiidu waxay tahay waddanka ma degna see deegaan wax looga dooran karaa cidda dooranaysa se ma xisaaban tahay waxa fiican oo aad iyo aad u fiican sideedaba ninku inuu systemkii hore iyo waxa la doonayo geediga loo yahay iyo dhibta hadda taagan saddexdaasba inuu khibrad u leeyahay weyn hadduusan saddexdaas qofku haysan ma haysto marjac iyo miisaan ma haysto ma ka wado in aan ka hor imaanayo codka dhallinyarada kama wado dhallinyarada waxaa ku jira dad ku taxalluqa inay siyaasadda irbadkeeda la socdaan inay tii hore oo la soo maray tii kacanka ahayd ama ha ahaato ama tii ka horraysay ha ahaato ama kuwii ka dambeeyadoo magaca dawladeed watay ha ahaato sooyaal baa la yidhaahdayo sooyaalka inay la socdaan inay haatan dhibta taagan wax badan ku fakereen oo ku soo jeedeen oo su'aal badan iyagu isweydiiyeen oo akhbaar badan ka helaan oo interest siiyaan iyo labadaa markay helaan caqligooda saliim ah oo qabiil ka madax bannaan oo danuu isagu leeyahay ka madax bannaan oo gaalnimo ka madax bannaan oo muslimnimo iyo soomaalinimo iyo maxaynu wax ku wadaagi karnaa keliya ka turjumaysa ayaa qofku heli karaa markuu haysto dhibta hadda taagan wixii la soo maray iyo meelaha aynu u soconno oo hayaanka fog u nahay haddii inta hadda ay dawladdu maamusho ama gobollada dawladaha gobolladu maamulaan haddii xal loo helo waxa kale waa wax yar oo geelu meeshuu u badan yahay baa laysugu dheelmaabaa lagu mahmaaha ninkii doonaya inaan waxba socon hadba meel buu far ka geliyaa wax waa haysannaa horta dalkeennii xataa kan haysta waxbaynu isku diidanahay haddii waxa la helo waa nin Soomaaliya anugu waxaan u doortay ama ay xaq ku tahay haddii la yidhaahdo degaan wax lagu doorto degaanku waa shiraya yar iyo weyn iyo dhallinyaro iyo mutacallim iyo oday iyo kulli waa la shirayaa wixii ulil albaab ah baana loo diraya waa kuwa meel walba laga soocay oo la yidhi maxaynu samaynaa oo xalalka soo saaray hadda gobollo waxaan ogahay gobol walba 100 qof laga saaray dadkaas iyaga ah gabdho iyo dhallinyaro iyo oday iyo haddii alla ku riyo mutacallim dad ay yaqaaniin baa la soo saarayaa oo degmada laga soo saaraya haddiise la yidhaahdo wixii hore ha lagu jiro nin madaxa oo ama isin ah ama qabiil ah yaa waxaa la odhanayaa ninkeen anugu waxaan idinka sheekaynayaa oo annaan uguba noqon doonin meel aan lagu diriirin markii hadda la keenayay dibutaatiyaasha ma jiraan
عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي وحوالي سؤالي وحوالي دولة الفدرال waxaa lagu soo doortay 4.5 waxaa noo qabsoomay dowlad goboleedyada ayaa qabatay taasaa noo qabsoomay gooniskaalkii kasoo hor ma jirin TV ay ku qoran tahay Jubbaland lama heli jirin waxyaabaha noo qabsoomay ay kamid tahay waxayna ku imaatay 4.5 maxaa diidaya ayadoona heli karin hadda one man one vote in aan 4.5 haddana ku qaybsano wax bayn waan soo gaarnay su'aasha aan guud ahaan aan weydiinayo dadka igala qaybgalaya barnaamijkana waxay tahay waa inta ku doodaysa in 4.5 ay tahay dhibaatada ugu ba'an ee dalka halakaysay ay isla mar ahaantaan ay doonayaan in hab deegaan wax lagu soo maamulo sidaan ognahay bulshada Soomaaliyeed uma tababarna xilligan in ay doorasho ay galaan ciidamo tayeysan ma joogaan deegaanada laga rabo in laga sameeyo marka aan iraahdo election ama doorasho Sultan Caweer adigoo soo koobaya sidee u dhici kartaa markaa waxay u dhici kartaa deegaan walba waxa la soocayaa qaybaha dadka dad kamid ah oo tira leh ilaahu kun laga dhigo ilaahu 500 laga dhigo ilaahu 200 laga dhigo tira kasta laga dhigay tira lagu heshiiyey oo mujtamaca ka kooban oo ardada ka yimid oo baamushtarka ka yimid oo gabdhaha ka yimid oo odayaasha ka yimid oo markaas maamulka jira ka yimid oo kulligood la bidayo wanaag inay inta isu yimaadaan ay markaas dad loola siiyaan dadka ka mid ayagu ay yiraahdaan hebel 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 ama ay yiraahdaan yaa is-sharaxaya oo aanu wood kala siinaa haddii asal aqoon markaa qaabka doorashada waxaan aqoon haddii laba rababa loola yeelan wey anigu fikirkaasaan qabaa waddan walbaba waxaan ugu baaqayaa in intii waagii dhowey taladaa iyadaa ka talisay oo 3 jibaaran gobol walba ilaa Buuhoodle ilaa Bari ilaa Galbeed si loogaga daydo si wanaaga oo sharafa intay ummad ay ku kalsoon yihiin oo ardadu dad soo dirsatay oo bilisku dad soo dirsaday oo askaraawiishtu dad soo dirsatay oo mutacallimiintu dad soo dirsadeen oo baaxmushtarku dad soo dirsaday oo qayb hadhow oran doonta oo cid kasta oo haddii la rabo la oranayo qabiil walowba wax allaala waxaad yacni dad xula inta la soo diro in la weydiiyo yaa is-sharaxaya maxaadse nagu hogaaminaysaa haddii aad madax noogu noqotid oo aan ku dooranno markaasna ilaahay dartii inta loo sameeyo dad lagu aamini karo boosisyonayaashaas oo ka madax bannaan wax la yiraahdo ilaahay wuxuu raalli ka ahayn in ummadda Soomaaliyeed loo soo gudbiyo ummadda Soomaaliyeedna ay xaq ku bedelaan iyagu waxay tahay dadka ku doodayo in deegaan wax lagu qaybsado ma la dhihi karaa waa dad ku tashanayo inay deegaan leeyihiin su'aashaas waxaan rabaa markaa in aad soo wada koobtaan qowmiyadu waxay qowmiyad ku noqotaa in aragtiyada lagu kala bedelaado muuqaalka lagu kala bedelaado soo ilaahay ba maaragtay dadka u kala fadilay nin walba aragtidiisa inta la egta haddaan soo koobo dadka ku andacoonayo ee aniga aan ka mid ahay in deegaan wax lagu qaybsado waxaan aaminsanahay deegaan haddii wax laga dhigo inaan wax helayo aniga waxaan qabaa in deegaanna wax lagu qaybsado yaa u qalmana lagu daro qof Soomaaliyeed oo aan deegaan lahaynuna ma jiro qof Soomaaliyeed oo waxa qofka kale uga baahan yahay maamul wanaag uga baahnaynuna ma jiro qof markii la doorto deegaankaas u kala axanayaana qof habaaran oo inkaaru ku dhacday oo ceeboobay oo inkaaru ku dhacday oo halaag u yeertay weeye ogaadana
qof inta la doorto qabiil wax taraya ma jiro marka anigu waxaan deegaanka u rabaa bulshada deegaanka deganu inay ku raadiso toosh qof u qalma iyagoo wax kalaba ka madax bannaan faylka uu isagu leeyahay diinta uu isagu leeyahay tadabburka uu isagu leeyahay faylkiisu siduu nadiif u yahay iyo waxa uu bulshada soo hordhigo oo ballan qaadayo hadhowna lagula xisaabtamayo maya ana taas in la yidhaahdo ma qabo laakiin waxaan qabaa inay tahay dadka u doodayo deegaan ha lagu qaybiyo inay tahay arrinta xalka ah jid la raaci karana ay tahay laakiin inaysan ahayn in deegaan bes aad leedahay deegaanka waxaa la tixgelin karaa ninka kula deganoo wadaadka ninka kula deganoo soomaaliga xuquuqda dowladda dhexa usoo ridayso odayaalka usoo ridayo nin kasta xuquuqdu leeyahay wuu helaya laakiin waxaan qabaa waa nidaam dawli ah oo la maro oo ku salaysan tuulo iyo dow iyo daaq iyo nidaam ku salaysan laakiin ma aha inaan deegaan ballaaran leh besa ma ah inuu qofka leeyahay ma aha laakiin qof kastoo soomaaliya xaqiisa iyo doodii iyo cidda waxad u sheegan lahayd nabiga sal allahu alay wasallam beder markii la gaaray ashiiru calaya markuu yidhi mujaahidiintii markay hadleen ansaar buu yidhi hadla ninka deegaanka degan xaq buu leeyahay ninka kalena wuxuu leeyahay magac isaga in la tixgeliyuu leeyahay waa tixgelintana way imaan waana loo garsoori laakiin ma qabo waa nidaamkii la raaci lahaa nidaamka in la raaco loo hoggaansamay aniga ila hadduusan nidaam jirin oo jugjug meeshaad joog bay noqon deegaanka waa meesha qof walba uu degan yahay oo uuna ka soo baxayo qof walbana guriguu ka soo baxaa deegaanuu leeyahay qof aan deegaanka deganayna micnaha meesha siita micnaha waxba kuma lahan Jubbaland sidii hadda deegaanka ay u qaadatay oo kale waa inay Soomaaliya inteeda kalena u qaadataa deegaaminta waa waxa kaliya horumarka lagu gaari karo deegaaminta wax county government war adduunka dhan ay ka dhisan tahay ilaa western ilaa ay ka soo gaar United States ka soo bilow ilaa meesha ugu dambaysa deegaan wax lagu kala qaataa qof walbana deegaan oo ka soo baxaa deegaankaasna waa inaan annagana aan qaadanaa ma aha 4.5 afar dhibic bar afar nin iyo hal gabar waa micnaha afar nin iyo hal gabarna ma soconaysa adduunka meel laga jirsan ma yaqaan Soomaaliya waxa qaabka wax loogu qeybiyay qofkii keenaa taa qof qaldan waa qofkaas inuu Soomaaliya tirtira rabo waa marka 4.5 waa ka gudubnay waana dhaafna taasaan rabnaa micnaha waana salaamaya Jubbaland TV Soomaaliya in deegaanka soo jeedin ma laha oo Soomaaliya way deegaan badan tahay wayna ballaaran tahay qaasatan haddaan iska hadla deegaanka aan ka soo jeedo waa deegaan aad u ballaaran balse shacabka Soomaaliyeed saacadan ma ku dooran karaan deegaan waa maya run in la sheego qofka hadda soo baxay oo imaanayo 4.5 naftiisu ku imaanayo tuulo ka imaaday tuuladu ka imaaday ma degmo ma ahaan miya oo muxuu ahay ma miya meel ka imaan marka 4.5 hadda la taagan yahay xilligan wax badan ayuu naga soo gudbiyay marka horena aan sii soconno marka waan idin salaamayaa dhammaan qaasatan TV-ga Jubbaland waa mahadsan yahay barnaamijkan doodwadaag oo noo qabtay ayaan daawadayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena ardayga oo aan maanta kaga hadleynay qaab ceenkee ah ayay u dhici kartaa doorashada la filayo in sanadka 2016 ay dalka ay ka dhacaan barnaamijkana daawadayaal waxa igala qayb galay Cabdiqaadir Shaafici Maxamed Axmed Cabdirashiid Buule iyo Suldaan Cabdirasaaq Xirsi Suldaan Caweer iyo waliba Axmed Ismaaciil in daawadayaal barnaamijkan waxa idin la socodsiinaysaa anigoo ah Nimco Xasan Cabdi kaamiradan waa Cabdullaahi Axmed Cali barnaamij ceenkan oo kala daawadayaal intaan ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo